Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anigoo ah Governor Ali Ibrahim Roba, Governor Mandera. Sida walaalayaasheedii ay sheegeen, maanta waxaan ku kulanay Nairobi mas'uuliyiinta reer Mandera wax ka maqnaamay ma lahayn. Arrinta ugu weyn oo maanta iskugu imaanay waxay ahayd arrinta hadda ka socoto border-keeni, arrintaas oo ah in mar dhow dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo dirtay askar federaal ah inay Gedo region qaybo ka mid ah ay mas'uuliyadda dhinaca security-ga iyo administration-ka ay la wareegaan, taasoo ka imaaday dhibaatooyinka ka taagan dowlad goboleedka Kismaayo iyo dowladda federaalka. Annagoo mas'uuliyiinta reer Mandera tani xilligii madaxweynihii hore Allah u naxariistay Siyaad Barre uu haystay waddanka Soomaaliya, mas'uuliyiinta Mandera iyo shicibkaba maadaama aan jiraan lanahay ummadda Soomaaliyeed oo walaal aan nahay meeshaan isla degannahay, faragelis maanan samaynin. mas'uuliyiin haddaan nahay jiraantinimada baan dooraynay, dadaan gacan siinay, dhinaca walbaba ma aysan jirin. Waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arrinta neutral, dadaan moogtay ku xiriirsaneen hal dhinac. Marka arrintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ka u hayay Jubbaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay laga soo bixiyay oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin. Arrintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya, annagoon rabin arrinta inaan faragelinoon ka hadlin, laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas'uuliin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga ummadda reer Mandera iyo ummadda kale oo walaalayaasheen oo jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraan nahay. Arrinta hadda waxay keentay iska horimaasho aad u adag oo ka socota dhinaca ciidan uu wato ninka wasiirka Cabdirashiid uu wato iyo ciidamada federaalka Soomaaliya oo hadda Beled Xaawo la wareegay iyo Doolo la wareegay. Waxaan rabnaa inaan dowladda dhexe Kenya aan ka codsano inay boqolkiiba ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan ay ku dhaqdaan. Dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo, haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto. dadkaas oo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto. dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka u sii jeediyaan Beled Xaawo, kuwii Beled Xaawo joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandera, taasoo dhib u keeni doonto shicibkan anaga mas'uul ka nahay. hadday gaarto amniga ummadda reer Mandera khaasatan sida guudna aan mas'uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneen dowladaha dhexe waxay wataan. waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno, gacanna ma siinayno. waxaana rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado, meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso. midda labaad, dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan. shicibka Manderana waxaad ogaataan mas'uuliyiinta oo dhan boqolkiiba boqol way taageersan yihiin arrinta amniga ummaddaanada. wax walbo amniga wax u dhimayna boqolkiiba boqol waan ka soo horjeednaa. waxaana rabnaa dowladdeeni Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu degdeg badan wixii u dhaxeeyo moogtahay dhaqan wadaag ah ay hagaajistaan. laakiin annaga waxaa noo daran laba ummadoo jiraan ah oo col annaga shicib ahaan Beled Xaawana ka imaanin, Manderana ka imaanin, in lagu soo xawilo ummaddan ay meesha moogtahay xasilooni dhibaato weyn ay kala soo gudboonaato meesha. arrintaa waxaan rabnaa inaan ka codsano sida ugu degdega badan dowladda Kenya inay dadka meesha ka saaraan. ciidanka meesha soo fariistana iska horimaasho ayaga iyo shicibka intaan imaanin ka hore waxaan rabnaa inay sida ugu degdega badan meesha ka guuraan, because uma dulqaadan karno mana qaadanayno. waa arrin aad u adag oon u dulqaadan karin hal naf oo dhib uu ka soo gaaro arrin aan meesha ka imaada annaga aan ogeyn. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.